filan waa ayay la tahay inay xurnimo ku joogaan ciidda dalkooda hooyo kadib sanado ay sifa aan sharci ahayn ugu soo qaateen xabsiyada Liibiya. waxaan ka nimid caasimadda Liibiya Trablis xabsiyadeeda ugu dhaadheer ee Daarushaka Goorshacaar iyo Shaarisaawiya aad iyo aad baan u faraxsanahay maadaama aan ciideedii dalkii iyo ciideedii hooyaday iyo dalkayga in xorriyadooda ay helaan dalkoodana dib loogu soo celiyo 97 kan muwaadin ee ka soo degay garoonka aadan cadde waxa ay ka dhalatay kulan 29 Diseembar 2021 Istanbul ku dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo madaxweynaha golaha madaxtooyada Liibiya mudane Maxamed Yuunus Almenfi kulanka oo daarnaa xoojinta iskaashiga iyo sidii ay xorriyadooda u heli lahaayeen muwaadiniinteena ku xiran Liibiya. wallaahi hortaadiyaan maanta aan shucuurtada iyo dareenkayga aadlo dalkayga aad baan ugu faraxsanahay meeshaan imid Soomaaliya waxaan u sheegayaa in ay mar walba qani tahay way maanta anigu Soomaaliya ka tagay dalkayga waxaan haystay dal ciyaar laakiin maanta waxaan ogaaday in aan muwaadin Soomaaliyeed oo dhab aan anigu yahay waxaan u sheegayaa dhalinyarada ku fikiraysa in ama ay taariiba ama ay dalkooda ka tagaan waxa la dalkina waxa yiraahdaa ma jirto Soomaaliya aan walaata ayaan leeyay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aad baan u mahadcelinayaa isagana runtii wallaahi naftayda xataa diimaad ilaa ma jabaya madaxweynaha waxaan Soomaalida ama dhalinyarada khayrkay ku fikiraysa in ay taariikhad ay dalkooda ka tagaan wallaahi maanta dalkooda u dhaanta ama wax dhaama ma jiro anakeygana waa jecelahay Soomaaliya walaata ka baxaya Soomaaliya walaata waxaa si daal iyo quus aan lahayn uga socda dadaal xoogan oo dalka dib loogu soo celinayo dhibanayaasha Soomaaliyeed ee ku jira jeelasha caalamka. qorshaha baadigoobka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhiban xabsiyada caalamku waxa uu qayb aan ka go'in ka yahay siyaasadda ka jawaabidda baahiyaha dadweynaha ee madaxweyne Farmaajo dalka ku soo hogaaminayay. tan iyo Febraayo 2017 waqtiga oo hogaaminta dalka loo dhaarshay madaxweyne Farmaajo waxa uu xoogga saaray sidii dalkooda dib loogu soo celin lahaa dhammaanba muwaadiniinteena ku xiran dalalka caalamka si ay qayb uga noqdaan geediga dib u dhiska dalka iyo dawladnimada Soomaaliya. mar waliba oo madaxweyne Farmaajo helo casuumaadaha madallada iyo shirarka dalalka caalamka ku lafagurayaan ajendayaasha markaasi taagan waxa uu ahmiyad gaar ah siinayay la kulanka hogaamiyaasha ay dalalkooda ku xiran yihiin muwaadiniinteenu si ay u helaan fursad u dhiganta tan ay haystaan muwaadiniinta kale ee dalka ku nool. qorshahan oo dawladdu gelisay dadaal dheeriya waxa uu soo bilowday 23 Luulyo 2017 xilliga oo dalka dib loogu soo celiyay tiro kamid ah muwaadiniinteena Soomaaliyeed ee ku xirnaa dalka Itoobiya. 12 Diseembar 2017 waxaa sidan oo kale dalkooda loogu soo celiyay maxaabiis ku xirnaa jasiiradda Seychelles. 8 Maarch 2018 maalinimada Axad ay ahayd markii dawladdu ku guuleysatay in madaarka Muqdisho ay soo caga dhigato diyaarad siday muwaadiniin badan oo ku dhibaateysnaa xabsiyada dalka Hindiya. sidoo kale dalalka maxaabiista Soomaaliyeed oo ay ku xirnaayeen isla markaana lagu guuleystay in dalkooda dib loogu soo celiyo waxaa ka mid ah Iiraan iyo dalka Sacuudi Arabiya. dawladda Soomaaliya ayaa sidoo kale ku howlan soo deynta maxaabiis badan oo ku jira dalal badan oo caalamka ku yaala.